Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Baydhabo kula kulmay wafuud ka socotay qaramada midoobay ee Bangiga Adduunka isagoo kala hadlay xaaladda bini'aadanimo ee dalka, dhismaha nabadda, qorshaha deyn cafinta Soomaaliya iyo fulinta mashaariic horumarineed. Mas'uuliyiinta ka socday qaramada midoobay iyo Bangiga Adduunka ee Ra'iisul Wasaare Khayre la kulmay ayaa kala ahaa kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadanimada Mark Locke, kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan taageerada dhismaha nabadda Oscar Fernandes iyo madaxweyne ku-xigeenka Bangiga Adduunka Mahmoud Maliid oo Baydhabo booqasho ku yimid. Kulanka dhexmaray Ra'iisul Wasaare Khayre iyo mas'uuliyiinta ka socday qaramada midoobay iyo Bangiga Adduunka oo ay goobjoog ka ahaayeen madaxweynaha Koonfur Galbeed, qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda federaalka iyo Koonfur Galbeed ayaa si mug leh loogu falanqeeyay xaaladda bini'aadanimo ee dalka, dhismaha nabadda, qorshaha deyn cafinta Soomaaliya iyo in gargaarka lagu dhinac wado fulinta mashaariic horumarineed oo waxtar u leh bulshada Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa mas'uuliyiinta uu kulanka la qaatay waxa uu warbixiyay horumarada dowladda Soomaaliya ka gaartay arrimaha dib u heshiisiinta xaaladaha deegaanada Koonfur Galbeed ee uu socdaalka ku tagay, waxa uuna la wadaagay sida ay laga maarmaan u tahay in gargaarka loo bedelo mashaariic horumarineed oo waxtar u leh bulshada Soomaaliyeed si loogu diyaar garoobo xal waqti fog ah. Dhammaan mas'uuliyiinta uu kulanka la yeeshay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa bogaadiyay dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya ee dib u kabashada dalka, gaar ahaan arrimaha amniga, xaaladda bini'aadanimo, dib u heshiisiinta, kobaca dhaqaalaha iyo dowlad wanaagga. Waxa ayna sheegeen in hay'adaha qaramada midoobay iyo Bangiga Adduunku ay Soomaaliya kala shaqeynayaan ka guulgaaridda himilooyinka ummadda Soomaaliyeed. Wasiirka Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqinsaanka oo warbaahinta qaranka la hadashay ayaa warbixin kooban ka siisay ahmiyadda uu lahaa kulanka Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya uu la yeeshay mas'uuliyiinta ka socday qaramada midoobay iyo Bangiga Adduunka. Arrimihii ugu weynaa laga hadlay waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu fariin u diray beesha caalamka, fariin ah in Soomaaliya ay diyaar u tahay, in uuna ka codsaday, uuna ku gubaabiyay in mashaariicda gargaarka loo bedelo kuwo horumarineed. Sababtoo ah sidaa la socotay Soomaaliya labadii sano ugu dambeysay horumar aad u weyn ayaa ka dhacay dhinacyo badan. Sidaas darteed waxaa maanta muhiimadda aan saareynaa ay muhiim tahay Ra'iisul Wasaaraha baaqa u bixiyay ahayd in la bedelo, in meeshii looga baahan yahay gargaarna la geeyo, laakiin ay noqoto siday mashruucyada ay hadda kadib wixii ka dambeeyay ay programka ugu darsadaan in Soomaaliya ay u baahan tahay gargaar horumar ah. Dowladda Soomaaliya ayaa wada qorshe dalka looga xoreynayo argagixisada Al-Shabaab. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaana u sheegay kuna dhiirigeliyay hay'adaha caalamiga ah in taageero degdeg ah iyo mashaariic horumarineed ay gaarsiiyaan deegaanada laga xoreynayo argagixisada Al-Shabaab si bulshada ka soo kabanaya dhibaatooyinkii ka soo gaaray ficilada guracan ee kooxda nabadiidka Al-Shabaab ay u soo kabtaan. Waxaa kaloo uu Ra'iisul Wasaaruhu ka hadlay maadaama mar walba ay dowladda Soomaaliya ciidankeeda iyadoo adeegsanayso tuulooyin cusub, degmooyin cusub la xoreynayo, waxaa muhiim ah in gargaarku uu si isdaba joog ah u wada socdaan. Isla markii meel la xoreeyo loo baahan yahay gargaarkii iyo iskuuladii iyo caafimaadkii in isla markiiba la keeno. Sidoo kale wuxuu ka hadlay nabadeynta wadanka ka socota, wuxuu u soo qaatay tusaale nabadeynta uu xukuumadda iyo Ra'iisul Wasaaraha ay ka wadaan gobolka Galmudug. Wuxuu ka hadlay arrimihii Xeraale iyo Huurshe, nabadeyntii badneyd uu ka suubiyay, marka iyadana loo baahan yahay si ay nabadeyntaas xididada ay u surato in loo baahan yahay in la keeno gargaar tuulooyinkaas iyo deegaamadaas oo meel walba ka socoto, in waxbarashadii, caafimaadkii, gargaarkii si kastaba isla markii si nabadeyntu ay u noqoto mid raagta. Dhinaca kale Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo kula kulmay
safiirka Jarmalka u fadhiya Soomaaliya isagoo kala hadlay horumarinta xiriirka labada dowladood iyo dardargelinta mashaariicda horumarineed ee dowladda Jarmalku ka taageerto Soomaaliya. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Baydhabo.